المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة الكرام أما بعد وكلنكي لباد aan u talagalnay inaan khudbooyinka jumcada ku daraasayno oon isugu caqli celino kulligeen inta joogta iyo intana maqli doontaba waxa Allah tabaaraka wa tacaala uu ka yidhi ama qur-aankaba uu ku sheegay insaanka iyo basharka qur-aanka bini aadamka aad baa looga hadlay waxaana keenaya isaga qur-aanka loo soo dejiyey mar bashar baa laga hadlay marna bani aadam baa laga hadlay marna insaan baa laga hadlay marna annaas baa laga hadlay mar makhluuqaadka ilaahay baa lagu daray oo si caama loogu daray marna addoommada ilaahay baa laga cabiray marna dadka mu'miniinta ah baa laga cabiray marna dadka aan mu'miniinta ahaynba dhinac kasta oo bani aadamkan insaankan uu rabbigiis wax uga fahmi lahaa waa laga soo maray waa lagala hadlay qur-aanka waxaa lagu sheegay insaanku tilmaamaha uu leeyahay ee ka suurtoobi kara inay ka dhacaan hadday yihiin kuwo la mahadinayo oo lagu horumarayo iyo hadday yihiin kuwo lagu khasaarayo oo lagu dibdhacayo insaanka waxaa laga sheegay oo qur-aanka iyo sunnadu ay ka sheegeen noloshiisu meeshay ka soo bilaabatay iyo meeshay ku dhammaanayso xataa waxaa la tilmaamay isagoo caloosha hooyadii ku jira kadibna waxaa lagu xijiyey isagoo rabbigii hor taagan aakhiro oo la xisaabinayo labadaasaa laga yaabaa qur-aanku inuu isku xidho sababta waa laba shay oo dhacaya sida hadda aad ugu jeedin inuu qofkan dhashay bay xaqiiqo u tahay inuu rabbigii hortegi doono waxa loo hortegayana waa maxay waa intii uu soo noolaa wixii uu soo qabtay in laga xisaabiyo waxba loogu dari maayo hadduu khayr soo shaqaystayna khayrkiisii khayr aan u dhigmin oo kumaankum jeer iyo malaayiin jeer ka badan baa la siinaya hadduu shar soo qabtayna isagii khaaliqii bay ka dhaxaysa intaas laguma daynin rusul baa loo soo diray kutub baa loo soo dejiyey dad kutubtaa yaqaana oo rususha aqoon u leh oo qur-aanka aqoon u leh oo kutubta ilaahay aqoon u leh yaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu go-aamiyey inta adduunka laga laabaya inay jiraan oo dadka ay ugu caqli celiyaan wixii ilaahay xaggiisa ka yimid hal daqiiqo oo qofka cudurdaar uu leeyahay uu sheegan kara gaar ahaan ummatu muxamed ma jiro khudbadan waxaan ku soo qaadanay marka arrimaha ugu waaweyn ee bani aadamka lagala hadlay oo ah risqigooda iyo quudkooda iyo waxa ay rabaan inay ku noolaadaan sidii ilaahay ugu talagalay inay u raadsadaan waa mas'alati alxalaal waalxaraam qof ka weyn oo ka dhex bixi kara oo muslim ah oo aakhiro rajo ka leh ma jiro qof kasta oo mas'alada xaaraanta iyo xalaashu ay iskaga badhxanto ama u badheedha ama ku adkaysta oo ku madax adayga qofkaas waxaa loo qaadanayaa oo shareecadu ay u qaadanaysaa inuu leeyahay anigu waxa aan samaynayo ma huba in la iga xisaabin doono oo hadda inay waxay dhaafaan dan iguma jirto sidaasaa hadalkiisa ficilkiisa laga fahmaya oo qur-aanka intaasoo aayadood iyo intaasoo axaadiis oo nebiga ka sugnaatay baa baabkan keliya ka hadlaya waa baab lagu kala tegay wey oo dadku ay ku kala baxeen oo lagu kala dheereeyey
وباب أخضوعي إلا الصبر كري إن كله وباب كهالليا وحي إلهي كو قري ما أقلاني سامسة أو ما كوكن عيسى مسه كما كان عيسيد وربي بعد سلوك سنتهاي وتكشكي سنتهاي وعو كو قري قفكو مركا وحاران تراديني وحي كدغنتahay shareecada agteeda inuu leeyahay ilaahay waxba iima soo wado uu igu daahay sidaa darteed anaa xoogayga iyo muruqayga iyo xeeladayda iyo aqligayga ku raasanayo waxaan u baahnay xaggana gacanta u taagaya dhaguhu furaysanaya indhahana uu isku qabanaya wixii loo sheegana dhaguhu ka xidhanaya wixii la tusan oo la yiraahdo waxaan adiga malihidna indhuhu ka xidhanay waa sida noloshiisu ay tahay weeye marka uu rabo inuusan kala garanin xaraanti iyo xalaashi marka uu og yahay uu iska indhatirayo uu dhagaha ka xidhanayo waxaan jooji markii la leh qof baa laga yaabaa in maalkii caamka ah loo dhiib qalinkiisu ku baxaya saxiixiis markaasaa waxaa laga yaabaa inuu u qaato maadaama qalinkii isaga loo dhiibay cid ku qabsanaysa inaysan jirin wax uu heshanayana wuu jiraayo waxaa laga yaabaa markii loo dhiibay in loogu dhiibay meeshan qoladiisu inay leeyihiin oo magaca tolkii uu matalayo reer hebel inuu meeshaan u hayo sidaa darteed shaydaanku wuxuu u qurxinayaa reer hebel maxay sameeyeen way dhisteen way cuneen haddii tolkaa muxuu u qadayaa marka wax weheshadana waa helaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waa inoo dhawaaqay 20 aayadood oo quraanka ka mid ah 20 aayadood oo quraanka ka mid ah oo u qaybsan 9 suuradood oo isugu jira suuradaha Maka ku soo degay iyo suuradaha Madiina ku soo degay waxaa la yiraahdaa haddaad aragtid quraanka haddaad ku aragtid mas'alo waagii Maka la joogayna laga hadlay waagii Madiina la yimidna weli laga sii hadlayo mas'aladaas dul istaag yeysan ka baxsan 9 suuradood oo kuwa Maka ku soo degay iyo kuwa Madiina ku soo degay u qaybsan oo 20 jeer lagu soo celceliyay iyo ilaahay leeyahay yaa ayuhan naas dhawaaq way waxa kamida marka inuu Allah leeyahay wardadow kulu mimma fil ardi halalan tayyib arlada waxa yaalo way ka badan yihiin sida loo raasada way badan tahay noocyada la helayaa way badan yihiin waxa xalaasha iyo waxa xaraanta waxa la tirin karaa waxa xaraanta waxa xalaasha lama tirin karo fiqiga Soomaalida arag fiqiga shariicada ma waxa xaraanta baa la tiriyaa mise waxa xalaasha beeca marka laga hadlayo maxaa abwaabta ribada iyo khiyaanada iyo maxaa loo keenaa wixii banaana loo tirin laayay waxa banaan ee xalaasha lama tirin karo way ka badan yihiin bini aadamka waxa xaraanti uu kooban yahay sida darteed waxa lagu leeyahay kan 10 xaashi baa lagu soo koobaya lagu leeyahay 10 kan iska xifdi intaan ka fogow intii kala Soomaha shaqayso waxa arlada yaala qinac xalaasha ka marweed iskana jira oo haraacina shaydaanka haraacina wadooyinkiis ومحا دح إنه لكم عدو مبين مربان سلسلة كسو قادن دونا هدو إلهي نغسين شيطان كسيدا وغسو أروري قرآنك هدو إلهي نغسين وكوكو هريا جري هدان نول لاي هوري أنو تلمانين أن سو قادن دونا هدو إلهي دادو صراط المستقيم باكمين ودد توسن شريعة قرآنكم محو يقان عدو إذين يهي اسكجر أيوج كدب وحا لعبدي عداوديس waxay ku salaysanta inma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha saddex shay buu idin faraya dhaqankiina ka muuqanay waxa xun iyo waxa ilaahay ka agtiisa ka foolxo iyo waxa ilaahay agtiisa laga inkiray iyo inaad ilaahay cilmi la'aan ka hadashaan diintiis oo waliba min baabil halal wal haram baa lagu jiray
inaad waxaydaan garanaynin xaaraan ku tilmaantaan, waxaydaan garanaynin aad xalaal ku tilmaantaan, weliba intaad ka shirtaan dadkiina go-aanku uu gacanta ugu jiro ay iyagoon ilaahay fiirinin ay go-aan gaadhaan, ay go-aan soo saaraan, ilaahay ay ku yidhaahdaan hadal aan maxaan ku aysan u cilmi lahayn. ayad kalena waxay lahayd fakuluu mima fi lardi xalaalan طayiba washkuruu nicmat allah. war ilaahay nicmooyinkiisa way badan yihiin oo ku shukriya. way noo iman doontaa inaan la tirin karin nicmooyinka ilaahay, mar baan soo qaadan doonaa haddii ilaahay in kuntum iyaahu tacbuduun. halkaas walaalayaal waxaa la isku xidhay qofkii ilaahay baan caabudayaa leh oo inuu ilaahay caabudaya ay ka dhab tahay, waxaa looga fadhiyaa oo laga sugayaa inuu xaaraanta iyo xalaasha kala yaqaan. kadib markuu kala gartana uu xalaasha ku tooso, wixii xaraanana uu yidhahdo halayga fogay, halayga fogay. nin baa la ii sheegay, ilaahay khayr ha siiyo, dowladda puntland ay u magacaawday jago. sida uu khabarku igu soo gaadhay markii meesha loo magacaabay yaa wuxuu yidhi haddee maxaan anigu leeyahay mushaarahaan. markaasaa la yidhi intaasaad leedahay. intaas uguma filabi, waxaan hay iyo waxa la ii dhiibi doono waxa uu yahay iyo waxa la ii magacaabay ismale, ama waxa laga qabto ama ha layga daayo. oo danta laga leeyahay waa maxay? markii qofka mushaarka lagu yaraynayo hanti badanna loo dhiibayo, macnaheedu waa maxay? waa isla fahmayna, waa isla fahmayna. wax baarbaarid u baahan ma ah. qofka in mushaarkiisa qoran uu $1,000 yahay, lacagta uu kharash garaynayaan ay 20,000 tahay, macnaheedu waa maxay? macnaheedu waa maxay? qofka inuu mushaarkiisu 2,000 yahay, lacagta bishii ku baxaysana ay 50,000 tahay, macnaheedu waa maxay? qofka ay ka dhab tahay inuu ilaahay caabudayo, xaaraan iyo xalaalba agtiisa wax cad ka aanaysa. intaas waxaa kuu dheer, nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay wardadow ayuha nnaas, quudka inaad dalbanaysaan ood arsaaq raadsanaysaan, waddooyinka aada u maraysaan wanaajiye, dhinaca wanaagsan ka mara. ogaadana naf adduunkan ka tegaysaa inaysan jirin ilaa wixii loo qoray ay dhammaystirato. haba ka soo daaha risqigaas, haba ka soo daaho. haddii marka aadan ku qanacsanayn wixii intaad shaqaysatay ood kalahday ood carowday oo aad dadaashay, wixii ku soo galay haddaad ku qanci weydid, macnaheedu waa maxay? macnaheedu waxaa weeye maya, intaan kuma qanacsani, waxaan u baahnay inaa ilaahay daba maro, wuxuu rabaa ha igu sameeyo, kolley waan raadsanaya. 2 jeer buu ku soo celiyey fattaquu llaha wa ajmilu fi talab. wuxuu ku soo gabagabeeyey wixii laydiin xalaaleeyena qaata, wixii laydinka xarimayna ka taga. imisaa la joogaya adduunka, imise milyaneer baa adduunkan ka baxay, imise qof oo hantiilo ah oo malaayiin dollar haya baa hadda sariirta saaran oo waxba aan ka cuni karin, waxba aan ka cuni karin. imisaa maalkoodii dadkii ka dhaxlay ay ku ciyaarayaan oo hadba dhinacay u tuurayaan. waxaan inta aada nooshahayna in waxaad ku leedahay waad og tahay oo dee shareecadaa sheegtay. waxaad gashatid, waxaad cabtid, waxaad cuntid, meel yarood ku seexatid, inta kale way kaysan tahay, dad baad u haysaa. waxaas marka meel fiican ka keen, meel fiicanna ku bixi. 3 dhinac un bayna dalabku risqigu noqdaa si aan usoo ururinno. inuu yahay shaqo iyo dalab ilaahay uu ogol yahay, alxalaal baa la yidhaahdaa. inuu yahay waxaan ilaahay ogolayn, xaaraan baa la yidhaahdaa. iyo meel u dhaxaysa oo qofka uu kala garan la'yahay. meesha uu garan la'yahay waxaa lagu darayaa shareecada, qeybta xaaraantaa lagu darayaa. mushtabihaat baa la yidhaahdaa. ilaa aada culimada u tagto oo ay kuu caddeeyaan, haddaad ku dhiiratid waxay la mid tahay nin boqor ah meel uu seeraystay ama madaxtooyadiisii oo adigoo u dhuundhuumanaya lagu arkay. bal madaxtooyada hadda adoo gagabanaya ha lagu arko, markiiba maxaa laguu xugminaya? wuu isqarxinaya. meeshaad geli lahayd lama yaqaano. markaad xaaraanta u dhuumanaysid
oo aad garab marmar meelaha aad ku wareegaysanaysid oo waxaan ma kala garanaya aad leedahay waxay ka dhigan tahay dhinacii xaaraanta aan usii socdo. waxaasoo dhanna waxay kusoo biyey shubanayaan sida qalbigaagu uu diyaarka ugu yahay inaad ilaahay kula tacaamusho sidii adigoo addoonkiisii ah. faina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kullu. marka walaalayaal hadal badan uma baahnin markii laga hadlayo min baabi alxalaali waalxaraam. waxaan u baahannahay qofku inuu isxisaabiyo maadaama maanta uu nool yahay, qalin iyo waraaq uu qaato waxaanaad haysaa muxuu yahay, yaa iska leh, xaggee ka keentay, hadduu khaldan yahay ma celin kartaa, inaad la dhimato ma dan baa kuugu jirta, imise meeloodoo xalaal aad ka raadsan kartaa jirta, waddadaan ma ka leexan kartaa. ثم صلوا وسلموا على نبي الأمين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا اللهم لما تحبه وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا نستكفي به عن غيرك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا نستكفي به عن غيرك. اللهم ها نحن رفعنا إليك أيدينا في هذه الساعة المباركة رفعنا إليك أيدينا في هذه الساعة المباركة. اللهم لا تردها إلينا صفرا. اللهم لا تردها إلينا صفرا. آمين آمين. وأقم الصلاة.